barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da dhegaystayaal barnaamijkii kan ka horreeyey sidaad ku maqasheen waxaa jira heerar dhowra oo ay caanuhu maraan heer walibana uu soomaalida magac gaara u leeyahay mar waa dhay marna waa mayac marna waa suusac marna waa garoor oo lagu magacaabo caanaha looda iyo kuwa arigu markay fadhiistaan isla barnaamijkaas ayaan waxaan ku soo qaaday sababaha caanaha loo dhigo tan iyo inta ay ka garoorayaan 4 sababood ayaan idiin sheegay waxaase ugu weynaa labada kale ah kaydka ay haweenku raggooda maqan u dhigi jireen iyo lulliinka oo ah hanaan soomaalidii reer miyiga ahayd ay waayo hore soo rogtay oo caanaha ay ugala bixi jirtay burcadka ku jira kaasoo intay shiilaan ay ka heli jireen subag ay jiilaalada u baxsadaan caanaha haddaba inta la lushay burcadkii lagala baxay ciir baa lagu magacaabaa haddiibana waa dhanaanaadaan carruurta iyo dumarkii lolay mooye ragga waaweyn iyo barbaarta reerku uma badnayn inay dhammaan martidana gasiinka lagu sooraayo looguma soo dari jirin sababtuna waa baahi ay u qabeen oo aan jirin saadhayda iyo garoorka oo ka dhadhan wacan baa weel walba uga buuxee taa ka sokowna waxayba la ahayd caano subagii lagala baxay inaanay lahayn wax loogu xisho iyo nuxur dadka waxtar u yeelan kara toona su-aashuse waxay tahay markii ay ciirtu badato inteeda uu reerku ka maarmo sidee bay u geli jireen 3 siyood mid ahaan inay yeelaan ayay u badnayd mar waxay ugu deeqi jireen qoysaska ay xooluhu ku yar yihiin ee lo iyo ari toonihi aanay u soo xeroon qoysaska aan lagu ogeyn caano ay dhay ku dhammaan iyo kuwo intag u garoora ay lushaan hadhowna ciir u noqda haddiise qoysaskaas saboolka alla waayo waxay siin jireen xoolaha qaarkood gaar ahaan awrta oo markii la soo hooyo cilcilowga fiidkii dhamistooda u soo safata labadaas haddii aan midkood la helinna ciirta way daadin jireen oo weelasha ay ka buuxdo ayay ka bannaysan jireen meel walbase kuma ay daadin jireene xurmo iyo maamuus ay u hayeen darteed waxay ku sugi jireen godad ay si gaara u qodi jireen aqallada qoyskana aan ka fogeyn arrintu sidaas inay ahaydna waxaad ku garataa nin sodcaala oo reerkiisii uga soo kacay geyi roob leh tigaaddii uu bixiyena ay xoolihii ugu darareen ayaa markii meel kale lagu waraysto wuxuu dadka dhagaysanaya warka ugu soo gaabin jiray ciirtaa jugle ama ciirta awrta ayaa la siiyaa ama ciirta waa la qubaa markaas baa la garan jiray inuu meel roon ka yimid inkastoo sidaan soo sheegay ragga waaweyn iyo barbaarta qoysku aanay u badnayn inay ciirta dhammaan haddana taas macnaheedu ma aha inay ka caaganaayeen waxaa dhici jirtay in kolkol odayga reerku wax ugu wacanba uu caanaha dhayda aqoonsado isla markaasna ciirta iyo dhanaankeeda uu laabjeex uga baqo markaas bay ooridiisu u howlgeli jirtay waxay u bayri jirtay farsamada ay soomaalidu buqbuqada u taqaan in dhay ah iyo xoogaa ciira intay isugu darto ayay u keeni jirtay haruub ay ku jiraan caano qabow oo sidii garoorka u dhadhamaya dhanaankii ciirtuna uu ka ba'ay si kastaba ha ahaatee garoorka ciirta iyo sixinka lagala baxo iyo buqbuqaduba waa astaamo barwaaqo dhammidoodna caanaha loogu irkado kuwa looda ayaa ugu badan uguna wanaagsan sidaasoo ay tahayna soomaalidu lo'da waa liidaa waxay ku daraabaan inay adkaysi yar tahay oo sida geela aanay biyaha uga qadi karin waxay ku dhaliilaan 3 cisho wax ka badan inaysan moogaan karin mar walbana ay u baahan tahay balli ama kaalin ceel inay ka agdhowdahay waxaaba caado noqotay gabyaaga soomaaliyeed marka uu geela ammaanayo inuu lo'da cagta sii mariyo isaga oo ku tilmaamaya waxaan xoolo ahayn oo reerkii haysta iyo kii aan haysani ay isku mid yihiin allah u naxariistay cumar xuseen gorse oo lagu naanaysi jiray cumar istiiliya reer berberaadna ahaa ayaa beri tiriyey gabay aad u caan baxay
waa gabaygii dhagax nafle la baxay ee uu geela aada ugu tilmaamay uguna ammaanay, kaasoo tuduc adartiisa ka mida uu lo-da ku liiday. wuxuu ku sheegay inay tahay waxaan cidnaba xoolo u noqon karin haddii aanay addimada biyaha kula jirin. waa kii odhan jiray, lo-da dhayda laga maalayo iyo dhiiqda iyo xoorku dhudhunkay biyaha kula jirto iyo dharabka weeyaane dhaldhalaalka iyo ciirtu waa dhuubka karameede, kol hadday abaaruhu dhacaan dhimatay geesleeye, ragga laxaasii dhowrayow dhaqasha waa geelab. cumar xuseen ka hor gabaygiisa ku magacaaban mawdku ka adeeg waatuu sayid maxamedna lo-da ku daraabay, inkasta uu marka hore u qiraayo in caano macaan ciid iyo buqbuqaba iyada loogu marti yahay. taasise waa markay aaranka tahay oo keliyahe wuxuu sayidku ina xusuusinayaa jiilaalka muggay tahay weysha uu isagu dhalayna allaha ka dhigee inaan saca cidina caana ka jeeqaaqin, saa isagaaba nafeh. waxaa haddana wax lala ashqaraada la ah ninka lo-da leh ee ay la tahay inuu xoola haysto. wuxuu yidhi, lo-da baydideed waa hadday baraq u joogtaaye barqamaha gugiibaa xumbada laga buf siiyaaye, buqbuqoodka iyo ciirtu waa beri samaagiiye, boggan wuxuu insaarixin intuu baarta cunayaaye jiilaal baraahsaday, sacii balafyay weyshiiye, ninkii baqar lahaa waa hungee ba'a iyo u sheega. barbaarkii isaguna lo-da ka daydin jiray waa kii heesuu u tiriyey inoogu sheegay caanaha lo-du inay wakhti kooban ku eg yihiin. waa kii ku tilmaamay inay la mid yihiin xoogga gabadha gashaantida ah ee kol dhow inta la guursado lala tegi doono, taasoo aan reerkoodu wax badan ciidankeeda isku hallayn karin. labadaba waa caanaha lo-da iyo xoogga gashaantide. wuxuu barbaarku ku saaweynayaa caleenta hadiga oo sida la sheegay wax yar kadib geedka ay ku taal ka dhacda. markaas buu yidhi, caanahaagiyo ciidan gabar weyn waa caleen hadi oo ciyoon dhace. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo jooga. waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.